Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. Maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Cameroon. Channelka subscribe si videoda like gare, commentna xagga hoose ku qor. Dalka Cameroon ama Republic of Cameroon. Dalka Cameroon wuxuu ku yaalaa galbeedka qaaradda Afrika. Galbeed waxaa ka xidheeya dalka Nigeria, dalka Chadna waqooyi bari, xagga bari dalka Central Africa, xagga koonfur waxaa xidheeya Guinea Equator iyo dalka Gabon. Caasimadda dalka Cameroon waa Yaoundé. Xagga dadweynaha ku nool caasimadda gaadhayo 2,800,000 oo qof, cabirkeeduna yahay 180,000 oo kiiloomitir oo iskuweer ah. Cabirka dalka Cameroon waxaa lagu qiyaasaa 475,000 oo kiiloomitir oo iskuweer ah. Xaggu dhulku u qaybsan yahay 3 saxara iyo buuro iyo xeebo. Tirada dadweynaha ku nool dalka Cameroon waxaa lagu qiyaasaa 28 milyan oo qof sanadkii 2018. Xagga dadweynuhu u kala baxaan 200 oo qowmiyadood oo ku nool dalka Cameroon. Waa imisa tirada dadweynaha dalkaada ku nool iyo imisa qowmiyadood ay u kala baxaan? Fadlan xagga hoose kommentiyada igu jawaab. Luqadda rasmiga ee dalka Cameroon waa af Faransiiska iyo af Ingiriisiga. Diinta dalka Cameroon waa Kiristaanka, waxaa ku soo xiga diinta Islaamka, waxaa ku xiga diinanka qabiilada Afrikaanka. Lacagta dalka lagu isticmaalo waxaa loo yaqaanaa Frankida. Madaxweynaha dalka Cameroon magaciisu waa Paul Biya. Dalka Cameroon xorriyadiisii wuxuu kala soo noqday gumeystaha Faransiiska 1960. Waa dalka labaad ee qaaradda Afrikada xornimadiisii la soo noqday. Dhaqaalaha dalka Cameroon wuxuu ku dhisan yahay shidaalka iyo beeraha iyo ganacsiga. Su'aal: imisa jeer ayuu xulka qaranka ee kubadda cagta ee dalka Cameroon uu ka ciyaaray koobka adduunka? Fadlan xagga hoose kommentiyada ku soo qor. Waxaan rajaynayaa macluumaadka videodu ka sheekeynayo inaad laga faa'iidaysto.
channelka subscribe sii, videoga like garee, commentna xagga hoose ku qor.